wararka ka imaanaya jamhuuriyadda Jabuuti ayaa sheegaya in muddo uu halka ku xidhan yahay mid kamid ah duuliyaasha ciidanka cirka ee Jabuuti oo wararka qaar ay sheegayaan in lagu eedeeyay khaa'inul wadaninimo. duuliyahan ayaa 2 bil ka hor waxay wararku sheegayaan in xukuumadda Itoobiya ay ku soo wareejisay jamhuuriyadda Jabuuti halkaas oo uu baxsaday markii hore. haddaba xaaladiisu waa sidee iminka? xaaskiisa oo goor dhaweydaan teleefanka kula xiriiray ayaa iga warantay waxayna marka hore bal ku bilaabaysaa magaceeda. magacaygu waa Samiro Jaamac Cabdi, waxaan ahay Fuad Yusuf Ali islaantiisii baan ahay. marka bal Fuad xogtiisa waxaad ka hayso bal nooga waran. Fuad xogtiisa horta sida runta adduunweynaha qofku ka qarsoon yahay ma jirto. annaguba sidaasaanan markii hore xogtiisa waxba uga ogeyn. maalintu dalka ka baxan ugu dambeysay nalama tusin ka bacdi 2 bilood iyo waxaan ku qadaadiicna maanta waxaan ku aragtidiisa ma hayno. waxaan ku walaalkayow xogtiisa Fuadna maanta horta cid ay ka qarsoon tahay adduunweynaha ma jirto intay dhameystiran tahay. marka xogtiisa aan qarsoonayn adduunweynaha oo dhan wada ogyahay maxay tahay marka bal si dadka aan ogeynayo fahmaan. waxay tahay shalay toole fiidiyogu iska soo duubay baraha bulshada iyo caalamku intuu tiro leegiyay buu haystaa isagoo gabood dhexdiisa kiniif dhex jiifa jirkiisuna googo'ay. wax xoga ma ka haysaan marka waxa lagu haysto? xukunkani horta wali alaanag inay afookaagi dacwada u furan maba ogola. maxkamadda in la keeno lama ogola. wax Allah wax lagu haysto mar hadduu xukunkiiba maxkamad ninkii soo joojineen maxaa laga garan karaa? bal idinka markii idin ku dambeysay xaqu ku maqnaa waxaad sheegtay inuu mar idinka tagay 2 bilood ka hore. maalin jimcaha buu naga shaqo tagay. cadaalad darradii weligiiba lagu hayay xerada dhexdeeda ayuu ninkii waxaan ku uri dhulka waa confirmo gaadiyaan ma jiraan buu ku uri sheefow maadaama maanta soo baxayo soo shaqo tagay ku uri wiibow gaari ii soo diroon caawa gaadhahay. wiib wuxuu ku uri gaari ma haya soo lugay waa maalin jimcaha 27 bayaad bishu soo lugay buu wiib ku uri. Fuad Yusuf Ali lugtu ka qaaday Beekaduus wuxuu ku tagay airportkii. marka Beekaduus waa xaafad kamid ah xaafadaha Jabuuti. waa xaafad kamid ah kana durugsan aan magaalada madaxda ka durugsan. waxa loo socdaa 2 saacadood baa loo socdaa marka baska la fuushan yahay. marka halkii buu ka lugeeyay airportku aaday kadibna maxaa dhacay? airportkii markuu aaday annagu 9kii habeenimo fiidiyoga magaalada qabsadeen baan aragnay reesooga. marka wuxuu u xidhan yahay iyo cidda uu xidhan yahay in wax xoga ma ka hesheen? wuxuu u xidhan yahay oo dacwadiisa wata oo cadaalad darro loo siiyay waa Wahiib cid kale Fuad uma xidhna. marka Wahiib muxuu yahayna? Wahiib waxa weeyaan ciidanka cirka ninka haysta weeyaan Wahiib. marka Fuad muxuu ahaa markii hore? Fuadna wuxuu ahaa nin baylad oo ciidanka cirka ka tirsan buu ahaa baylad buu ahaa. marka idinka inuu ninka u xidhan yahay xagee ka maqasheen? dacwada maxkamadda la keenayaba waxa wata waa Wahiib weyn cid kale ma aha. marka maxkamad ma la geeyay oo marna ma la sheegay dambiga loo haysto? maxkamadda habeen madowba bishii hore la geystay. markii la geystayna wuxuu ku yiraahdo dacwadan furaya ma jirta afookaagayga halay dalbado. habeen madowba afookaa loo yeedhi sidii baa lagu celiyay. dibna maxkamad looma keenin.